kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Rulman Media alaaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa xogihii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu saameynta badan muuqaalkana waxaad ku daawan doontaan xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe wadamo kamid ah qaliijka carabta oo xilligan ololaya kadib markii duqeymo ba'an ay ka geysatay Iran iyadoo sidoo kale qunsuliyadda Mareykanka ee dalka Pakistan la bilaqaystay dadka careysan dilkii hogaamiyihii Ayatollah Ali ayaa gudaha u galay waxaana halkaas ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac muuqaalkan ay idinkugu soo gudbin doonaa waxa sidoo kale qaybo kamid ah dalka Iran iyo sidoo kale wadamada Carabta ee taageersan Iran ka socda baroordiiq ku aadan dilkii Ayatollah Ali xogay u dambeeyay halkan kugu soo gudbin doonaa waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doonaa garoonka diyaaradaha amaba aan iraahday dekada weyn ee dalka Cumaan oo iyadana Iran ay la bartilmaameysatay duqeyn culus xilligan uu ka kacay dib aad u xoogan daminta ee dabkaasi ayay ku hooleeyihiin mas'uuliyiinta dalkaasi muuqaalkan ay idinkugu soo gudbin doonaa iyo sidoo kale eedeymo kulul oo loo jeedinayo dalka Iran kadib markii saaka si ba'an ay duqeymo kala duwan ay ugu geysatay dalalka qaliijka carabta iyo sidoo kale qaybo kamid ah wadamada bariga dhexe xogii u dambeeyay halkan kugu soo gudbin doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhagan balaalkana furasay ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share garay like inoo saarso oo gaar asxaab badan wad ku maasantaa daawashadaada aynu ku bilaabno Iran ayaa mar kale weeraro ba'an waxay ka fulisay wadamo ku yaala qaliijka carabta kuwaas oo saldhigyo waaweyn ugu yaala Mareykanka isla markaana duulaanka Iran laga soo qaado halkaasi Iran ayaa mar kale waxa ay saaka ay duqeymo ay la bartilmaameysatay dekada weyn ee dalka Cumaan iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyadoona halkaasi la sheegay in ay ku dhaceen dhowr gantaal kuwaas oo sababay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed iyadoo muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada laga arki karay qiica iyo sidoo kale ololka cirka isku sii shareerayo iyadoona qasaare halkaas ka dhashay muuqaalka bah laga dheehan karay heerka baaxadiisa uu la egyahay inkastoo wadamada qaliijka carabta oo ay Iran ay duqeysay ay soo bandhigin qasaarahooda dhabta waxayna ay qarinayaan jabka culus oo ay gaarsiinayso Iran maadaama Iran ay tahay wadanka kaliya ee sida adag dagaalka kula jira Mareykanka iyo sidoo kale Yahuuda qaar kamid ah wadamada qaliijka carabta ay la jiraan wadamada aan muslimka ahayn isla markaana ka soo horjeeda Iran ayaa mar kale waxay u soo jeesatay in ay cagta ay mariso wadamada ku yaala qaliijka carabta ee duulaanka looga soo qaado wadankeeda iyo sidoo kale Mareykanka iyo sidoo kale aan iraahday Yahuuda iyadoona wacad ku martay in aysan weerarada aysan joojin doonin ilaa ay ugu aargudo dilkii hogaamiyihii ugu weynaa ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei waxaana ay sheegeen in 40 maalin oo baroordiiq ah ay u qabanayaan inkastoo ay sidoo kale ay sheegeen in weeraradooda aysan joojin doonin isla markaana ay sii wadi doonaan qaybo kamid ah wadamada Carabta ee taageera Iran iyo sidoo kale qaybo kamid ah ee dalka Iran waxa ka soconaya baroordiiq oo loogu baroordiiqayo geeridii ku timid Allah u naxariistay Ayatollah Ali Khamenei kaasoo ay weerar ay ku dileen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo la bartilmaameysay hoygii uu ku sugnaa iyadoo halkaasi ay la joogeen saraakiil sarsare oo ka tirsanaa dalkaasi Iran balse xogo sirdoon ka baxay ee dalka Iran ay suurtagelisay in hogaamiyaha goobtii uu ku sugnaa la bartilmaameysay halkaasina uu ku geeriyoodo iyadoona geeridiisa ay si aad ay ugu farxeen wadamada aan muslimka ahayn iyo sidoo kale qaarkood wadamada Carabta ee taageeraha wadamadaasi ee aan muslimka ahayn isla markaana ka soo horjeeda Iran inkastoo wadamo badan oo muslim ah oo ay kamid tahay Pakistan si aad ah ay ugu xumaadeen dilka Ayatollah Ali Khamenei iyagoona halkaasi ka dhigay dibadbax weyn oo ay kaga soo horjeedaan amaba ay dareenkooda ku cabirayaan dilka Ayatollah Ali iyo sidoo kale dhibaatooyinka ee Mareykanka iyo sidoo kale Israel ay ka wadaan ee dalka Iran waxaana qaybo kamid ah dalka Pakistan ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo arinkaasi isla markaana ee lagu taageerayo Iran ee gantaalada iyo sidoo kale weerarada isdabajooga ay ka fulinayso qaybo kamid ah wadamada bariga dhexe iyo sidoo kale qaliijka carabta iyadoona arintan ay muujinayso sida ay ugu go'an tahay Iran inay difaacato dalkeeda
waxaana sidoo kale jira wadamo qaarkood ay kasoo horjeeda Iiraan isla markaana dhaliilo hawada u marinaya iyagoona ku sheegaya in weerarada Iiraan ay fulinayso ay yihiin dandaansi siyaasadeed bariga dhexana xaaladiisa ay kasii dari karto. waxaa sidoo kale soo baxaya fariimo kala duwan oo ka imaanaya qaarkood wadamada qaliidka carabta halka kuwa kale ay ka imaanayaan Mareykanka iyagoona la doonayo in xaaladda la qaboojiyo isla markaana bariga dhexe xaaladiisa la dejiyo. inkastoo Iiraan aysan hadalkaasi jalaq u siinaynin waxay sii wadadaa duqeymadeeda maadaama markii hore iyada oo iska fadhisa dandaansi weerar ah ay ku qaadeen Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka halkaasina ay xasuuq bacaan ay ka geysteen isla markaana arday isku dhiganaysa oo dumar ah dhamaantood ay geeriyoodeen. hogaamiyaal sarsare ayaa sidoo kale Iiraan ka geeriyooday uga horeeyo Ayatollah Ali. Iiraan ayaa u muuqata in marnaba dagaalkan aysan qaboojin doonin maadaama hogaamiyihii ugu sareeyay dalkeeda duqeyn lagu dilay iyadoona wacad ku martay in ay dhulka ay ku dari doonto saldhigyada waaweyn ee Mareykanka ee ku yaala wadamada qaliijka carabta iyo sidoo kale Israa'iil iyo Mareykanka gudihiisaba. waxay sheegtay inay bartilmaameedsan doonto haddii ay sheegtay in wadamo kale oo kamid ah qaliijka carabta ay soo fargashaan ayagana dhankooda ay ku qaadi doonto weeraro iyadoona markaan la soo baxday hubkii ugu dambeeyay oo ay ku doonayso inay dagaalka ay kula gasho amaba ay ugu argudo taliyaal sarsare oo laga dilay. markana waxaan eegaynaa Pakistan qunsuliyadda Mareykanka ee ku leeyahay halkaasi boqolaal dadweyne oo ka careysan dilka Ayatollah Ali ayaa isugu tagay iyagoona si xoog ah ku galay qunsuliyadda halkaasina ku bilaabay burburin aad u xoogan waxaana halkaasi ka dhashay qasaare kala duwan dhimashay dhaawac maadaama ilaaladii qunsuliyadda ay rasaas ay ku fureen dadweynihii halkaasi isugu tagay isla markaana burburinta ku bilaabay. waxa wararku ay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof ay ku geeriyootay tiri intaas ka badan dhaawacyo kala duwan uu soo gaaray inkastoo aan si rasmi ah loo shaacinin tirada rasmiga amaba qasaaraha rasmiga ee ka dhashay balse Pakistan ayaa waxa ay baaq ay u dirtay wadamada bariga dhexe iyo sidoo kale qaliidka carabta iyadoona ugu baaqday in xaaladda ay dejiyaan iyadoona sidoo kale taageero xoogan ay u muujisay Iiraan ayna aad ugu xumaatay dilka Ayatollah Ali Khamenei. waxaa sidoo kale jira in weerar ba'an Iiraan ay ku qaaday dekada weyn ee Cumaan halkaasi oo ay ku garaacday gantaalo waaweyn iyadoona sheegtay in wali aysan casharba u dhigin oo waxba ay u bilaabanin wixii hadda ku garaacday ay ahaayeen hordhac oo kaliya balse ay u dhiman yihiin weeraradeedii iyo sidoo kale dagaalkii ay ugu talagashay in la gasho qaliidka carabta iyo sidoo kale wadamada bariga dhexe. Mareykanka iyo sidoo kale Netanyahu ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa waxa ay markaan ka soo haray indho maadaama ay sugayeen in Iiraan markii ay dilaan hogaamiyahoodii Ayatollah Ali in ay niyajabto oo ay meel fadhiisato isla markaana dagaal aysan qaadin balse waxay ka warheleen in Iiraan markii la dilay hogaamiyahooda ay halkaasi ay ka qaaday dhiiranaan iyo sidoo kale adeeg iyadoona durba Iiraan ay bilowday in xubnihii sarsare la dilay booskooda ay u soo magacaabday hogaamiyaal kale si booskaasi uusan u banaanaanin iyadoona sheegtay in duulaanka halkiisa ay ka sii wadi karaan. Trump iyo sidoo kale Netanyahu ayaa waxay ku fikirayeen in markii ay dilaan Ayatollah Ali ay Iiraan ay degi doonto isla markaana ay isdhiibi doonto isla markaana arimihii muranka ay ka taagnaa ahaa hubka nuclear-ka ay joojiso balse Iiraan ayaa wacad ku martay in marnaba aysan joojin doonin hubkii ugu dambeeyayna ay la soo bixi doonto weeraradana halkiisa ay ka sii wadi doonto bariga dhexe iyo qaliidka carabtana ay cashir lama ilaabaan ah ay u dhigi doonto iyadoona sheegtay in dagaalka hadda uu bilaaw uu yahay halka Trump iyo sidoo kale Netanyahu ay ka soo yeerayaan calaacal aad u weyn iyagoona markaana codsanaya in xaaladda bariga dhexe la dejiyo isla markaana la qaboojiyo waxay raadinayaan qiil wadamo kale ay u soo marayaan iyagoona sheegaya in Iiraan doonayo in aysan weerar ba'an aysan ka fuli karin dalka Mareykanka halkaas oo laga dheehan karo in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump xilligan ay soo wajahday cabsi xoogan maadaama Iiraan weeraradeeda aysan u meel dayanaynin oo meeshii ay aragtaba oo cadawgeeda joogo ay ku dhufanayso. Mareykankana markaan waxa uu ka cabsi qabaa in wadankiisa goobo badan ay soo bartilmaameysatay Iiraan maadaama wax celiya uusan jirin
isla markaana ay u soo jeesatay markaan in ay gasho difaac adag maadaama hogaamiyaheedii ugu sareeyay la dilay isla markaana ay doonayso inay u aarto oo hogaamiyaal badan ay dhulka ay dhigto waxayna horay ay wacad ay ugu martay in markii la dulmiyay oo daandaansi ay ku soo qaadeen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil oo isgarabsanaya ay duqeymo fara badan ay ka geysteen dalkaasi iyadoona sheegtay in bariga dhexe wixii ka dhaco dhigta faraha la gashan doono isla markaana qaliidka carabtana ay cagta ay marsiin doonto wixii xoog ay ku soo kordhay ee la xiriiray dhacdooyinkan isdaba jooga ee ka dhacaya bariga dhexe sidoo kale qaliidka carabta iyadoo daqiiqada u dambeysa xaaladdu ay isbedelayso muuqaaladan xiga ayaa idinkugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeenana fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furasay ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe